taliyaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee aaga bari General Ali Barre Hussein ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaarihii dagaalka ka soo gaaray ciidamada huwanta ah kuwaasi oo dagaalka ku soo qaaday ciidamada qaranka Soomaaliland subaxnimadii hore saaka kaasi oo socday ilaa galinkii dambe ee maanta. Taliya Ali Barre Hussein ayaa faahfaahinaya khasaaraha soo gaaray ciidamada cadawga ah ee ku soo duulay qaranka Soomaaliland iyo guusha ay ku naaloonayaan ciidamada qaranka Soomaaliland. maanta bishu ay ahayd 2023 bishii afraad kowdeedii milishaad beeleedka Puntland iyo ciidamada argagixisada ee cabdimadooda xukumo waxay weerareen taakulaintayadii oo soo socota airportka Laascaanood halkaas oo ciidamada qaranku isla markiiba ku baxeen maxay ahayd dagaal xoog lina dhacay ilaa iyo magaalada la isla galay halka jab iyo guul daro ayaa ilaahay ka raaciyay gaadiidka laga qabsaday waxa weeyaan 3 gaari oo dhashiika iyo 1 gaari oo asikaawe iyo 1 gaari oo jiib ah inta waxa weeyay gaari waaraada oo muxuu ahaa laga qabsaday markii hore qaybtii 7aad wax kale inta weeyay gaari rasaas u siday oo nooho usna ah weerarka wax ka soo qaadeen jahada galbeedka ee laamiga u soo baxa in Hargeysa Burco ayay ka soo qaadeen dagaalkaasuna wuxuu bilowday 8 subaxnimo waxa kale ay ka soo qaadeen weerar dhinaca koonfur bari labada meelood waa lagu jibiyay ilaahay guul daro ka raaciyay anagana guushibana raacday ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa ninkii soo doontay ayuu ma dhibaato ku dhacday maxaa biista aan ka qabanay waxay dhantahay 13 uu ku jiro nin xildhibaan ah oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland isla markaana ahaa ninkii ku hadlayay ama ku hadaaqayay Burco ayaynu ka qodbayn doonaa.